si dhexda kaga cabirate alla mahayo raali noqda in maadeeryaalo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meel walbaa joogtaan caawa mise maanta qofka maalin u tahay qofka habeen u tahayba waa 26 Juun maantii xorriyadda Soomaaliya qaadatay. طبعا همبليا idin leeyahay meel walbaa joogtaan Soomaali weyn. waxaan halkan usoo fariistay طبعا habeen bay tahay usoo fariistay ninkii saaxiibkeen ahay Rashka Boy iyo Hafsa ayaa maanta isla dhex wareegaya magaalada tan oo la leeyahay Hafsa iyo Rashka ayaa kala tagay. Hafsa iyo Rashka ayaa kala tagay meel walba Hafsa iyo Rashka kala tagay. dhowr qof waxay tahay weydiisay soo baxday u dhaw dadkaas ma kala tageen maxaa jiro wixii jiro yaa hadda wada ogaanayna. video yar uu iska duubay Rashka oo snap iskaga duubay oo asoo ka hadlaya arrintan bal xoogaha ila dhageysta. Soomaali waa ku ogaa markii hore badankoona laakiin qaar yar oo qaldan oo dulliga ah oo wararka yani ka qaadi jiray dadka isaga idin dirsaday kiina ku mashquula yani Soomaalida qaarkood waxaa waaye toosh oo ku qadarka oo mashquul sistemada xiriirka la yaqaan subhanallah kama shaqeynayay walaalahay marka la isticmaalayo isku gudbin TikTok nolosheeda isticmaalo dadka TikTok furto oo Rashka Boy ku xirsaaka arkay maanta arkay arrintaas way jirtaa. Soomaalidana waxaan nahay maanta qofkii caan ah mise bulshada ka dhex muuqdo magaciisa badanaa la isticmaalaa oo lagu qaraabada Instagram ha dhihin Facebook ha dhihin TikTok ha dhihin. magaciisa aad ku qaraabanaysid mise is leedahay page ku kacso mise wax ku samayso ha u isticmaalin si qaldan. haddii magaciisa aad isticmaalaysid ha u isticmaalin si qaldan. bulshada ku xiranna ha ku dirin qofkaas. maanta qofka hadduu qofka soo raadiyo oo Rashka Boy meel ku qoro isdhaho hebel waaye uu la hadlo oo qofkii caayo wuxuu isdhaha qofkan muxuu damacsan yahay muxuu ii caynayaa. social media markuu hortaagayna qaab nooc kale ayuu matalayaa intana livekiisana qaab kale ayuu matalayaa. maxaasaan asagana beri buu ka yahayo wax kama ogo laga yaabo xitaa inuu lahaynbo cibaandan. marka dadka badana war xumada wado mise magaalada gelinaya warka xun dadkan Rashka Boy Hafsa waa dad mardhow isguursaday waa dad mardhow aqal dhistay waa dad mardhow hami iyo wax dhan wada samaystay iyo mustaqbal qurux badan samaysteen. waxa maanta inaad magaalada u gelisaan oo aad dhahdaan dadkaas may kala tageen way kala tageen way isfureen dadka hadda isqabtaa xitaa maxaa idinka galay ma faraha qaadaan dadka ayaga noloshooda xor u tahay ayaga noloshooda qaas u tahay ayaga noloshooda soo doonay ka yeelan karaan. uma maleynayo guur oo xiriir intaas la soo waday oo guur mardhow guurkii mardhow dhacay ayna isku faraxsan yihiin si sahlan ay kala tagayaan. anuu ma maleynayo mana u maleyn doono waxaan jeclahay aniga qaasatan ahaantay labada qof oo xiriirka ka dhaxeeya mar walbaba horta cadow horta lama waayo. cadowna ilaahay horta bulshada idinkama dhigo mar bulshada cadow haday kuu noqoto xanuun waa. waxaa fiican adiga ku mashquula ayaga waxaa fiican in adiga nafsadaada isku mashquushid wax qabsatid. asaga horumarkaas maanta u joogo dadaal buu sameeyey labada dadaal bay u sameeyeen wax bay qabsadeen. adiga warka boboonina magaalada wareejinayo waxay ka daba furanayo xumaantiis wareejinayo maxaa kuu dirsaday ma farax ka qaadid ma banaanka martid ma taada qabsatid. marka Soomaaliya horta anaga dhibaatadaas waa wada naqaanaa wax yar hadduu inta waaw ka soo dhaho geeskan kale waaw ka dhahnaayo si qaldan ma u fasirana si wanaag uma fasirana ma fahanteen. marka dadkaas horta wax kala tagan ma lahan waa dad isqabo waa dad isku faraxsan waa dad isla nool waa dad isla joogo. marka xumaatada wareejinaysaan dee farax ka qaadayo waxa aan sameynaysaan gabka dhaha maxaa idinku dhacay oo aad wax xun la wareejinaysaan. xumaatada aad bay xun tahay meesha qaran leh dabooli leh
ma inaad wareejisid dhahdi san waa maxay marka dee rashka boy xabsan aan waxaa idin leeyahay jiro jooga cadowgiina u noolaada dee dadka xumaatada wareejinayan waa jududaan mise si qaldan bay u hadlayaan waa u wada jeedaan dee kasoo hadlayo runta waxay tahay u sheega ma fahantay runta waxay tahay u sheega intay magaaladan sheekadan sii dheeraanin oo lasii bobooninin oo hawada sare la gelin waxay tahay sheekada u sheega oo kasoo hadla ma fahantay idinkoo isku duuban dhammaan dadkan ku fududaaday mise aan isdhahay bal xumaatii waxbaad ka sheegtay idinkan raali noqda dee guri dhisan lama burburiyo oo lasii dhisaan mooyaane ma fahantay marka khayr baa idinka tegayaa asxaabteyda arrintaas ayaa raba inaan ila wadaago xogta mar walba aad la wareegeysaan oo dadka weydiinaysaan waa intaas labadaa qof waa dad isku faraxsan dad isjecel dad isqabo marka ilaa haddana isku faraxsan yihin dad kala tagana ma ahan dad isku dhacsana ma ahan ma fahanteen marka hala joojiye waxaa wadaan peace and love Somali way